way bilaabatay. waa la qabqabanayaa, la baacsanayaa, xilalka laga xayuubinayaa, xabsiyana la dhigayaa, weliba lagu dhex fadeexadaynayaa dadweynaha hogaaminta xaday xoolaha qaranka. Itoobiya waxaa laga qabtay dufcaddii koowaad ee tuugada suudkiisa saxeexa ku xaday hantida shacabka. tani waa bilowga howlgal sifayn ah, saliya baarna ah nidaamka dowladnimada iyo siyaasadda hoggaanka xisbiga qaran ee Dr. Abiy Ahmed uu ku sifaynayo maamulka xisbigiisa. ku soo dhawow warbixin ay ka nixi doonaan maqalkeeda kuwa badan oo xilalka ku xaday hantidii dadka iyo dalka, qalin ku duudsiyey xuquuqdii dadweynaha iyo budhcadda suudkiisa saxeexa ku maaruqay dalka. ku soo dhawow faahfaahintan aynu ku dul istaagayno Itoobiya oo qabqabatay madax waaweyn oo tuugo xilal haysa ahaa. tallaabo ay shacabka dalku in badan sugayeen in la qaado, tallaabooyin kula soo booda ah oo ay dawladdu ku qabqabanayso xididadana ugu saarayso silsiladaha tuugada kuraasta ku fadhiya. tallaabo ka soo bilaabatay heer federaal, dalka oo idilna hulaaqaysa oo nadiifinaysa ilaa heer tuulo. tuug laguma dhaafayo. waxa aynanu isla eegaynaa maxay ayay tallaabadani uga dhigan tahay shacabka dalka. codka dhegahaaga culaya waa Axmed Owga, halkanina waa JTN ee soo dhowaada jaalayaal. ilama aha inaan ku tilmaamay xuquuqda muuqaalkani kugu leeyahay, geli wixii geli karaba muuqaalka. commentigana hal faale kaliya ayaynu maanta ka rabnaa ee ku qor, taasoo ah musuq cune, muuqan doone ama dhehba tuugow lagu qabay. fadeexado waaweyn oo daaha laga rogay iyo dufcaddii ugu horeysay hogaaminta tuugada ah ee xabsiga loo taxaabay xagga dambe ayaynu ugu iman doonaa. marka hore aynu isla fahanno halka uu ka soo bilaabmay dagaalkan tuugada suudkiisa saxeexa Abiy Ahmed uu ku hayo iyo qorshaha uga yaala xisbiga talada haya ee barwaaqo mas'uuliyiinta tuugada ee nidaamka ku jira. bilsagna ውስጥ institutional corruption የለም period ቢኖርማ ኖሮ ይሄ ሁሉ የምናየውን እንቅስቃሴ ማድረግ አንችልም ነበር። ሌብነት አለ? አዎ። ፒቲም ቢሆን መታረም አለበት? አዎ መታረም አለበት። ህዝብ ያስመራ ያስለቅሳል፣ አደገኛ ነገር ነው። ሌብነት ህዝብ የሚያስመርረው መታወቂያ ላውጣ፣ እንጃ ፍቃድ ላውጣ። 2022 kolkii ay taariikhdu ahayd, Abiy Ahmed waxa la hordhigay warbixinadii ugu horeeyay ee musuqa ka jira dawladda dhexdeeda. waxa la horgeeyay faylal mas'uuliyiin heer federaal, deegaanada ilaa heer tuulooyin ah. xilligaas waxa komishinka la dagaalanka musuqa ee qaranka haystay wasiirka arrimaha dibadda ee hadda Mr. Gideon. xilligaas oo lagu jiray tababarkii xisbiga ee sanadkaas, Abiy Ahmed waxa uu qaatay mikrofoonka, waxa uu cod dheer ku naadiyay, fartana ululay una sheegay indhihiisu inay hayaan hogaaminta xisbiga heerarkiisa kala duwan ee ku mashquulsan urursiga xoolaha dadweynaha iyo ka taajirista khayraadka ay ka gaajoonayaan 130 milyan ee dalkan iska leh. wixii kolkaas ka dambeeyay tiraba 3 jeer oo kale ayuu Abiy Ahmed ku celiyay in ay soo guuxayso duufaanta culus ee qabqabashada tuugada xilalka haya. kolkii ugu dambeysay ee digniintan fagaare laga shaaciyay waxay ahayd sanad ka hor, kolkii xisbi xaaka barwaaqo u diyaar garoobay doorashadii tagtay. xilligaas waxa uu Aadan Faarax ku-xigeenka madaxweynaha xisbigu si toos ah ugu dhawaaqay in ay gacanta ku hayaan ku dhawaad liiska 8,000 oo ka mid ah hogaaminta dalka heer federaal, heer deegaano ilaa tuulooyinka, kuwaasoo ku kacay tuugnimo laguna hayo kiisas culus oo ah in ay jeebasha ku shubteen dhaqaalaha dalkani saboolka ka yahay, ubadkoodana u boobeen hantida milyuumaadka ciyaalka Itoobiya ahi ay ka qatan yihiin. ugu dambayna kalfadhiga ugu dambeeyay ee baarlamaanka qaranka ee bishan qabsoomay ayay xildhibaanadu ku hordhigeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu dalka ka qabto tuugada xaragoonaysa ee ku amarku taagleynaysa kuna tagrifalaysa dadka iyo dalkaba. hawraarsan ayayna noqotay jawaabtii wasaaruhu ka bixiyay dalabkaas. hadda waxa yimi xilligii la qaadi lahaa weerar culus oo ka dhan ah tuugada maroorsaday ee curyaamiyey dhaqaalaha dalka. dawladda Abiy Ahmed waxay kolkan si toos ah u tiri madaxda tuugada ahi
waxay dalka uga daran yihiin argagixiso kasta iyo cadow kasta oo weerar ku ah jiritaanka qaranka waana in xididada loo saaraa la dabargooyaa oo dalka laga sifeeyaa tallaabadii waa la qaaday waxaana durba la soo bandhigay cutubkii koowaad ee tuugada dalka boobaysay faylalkii koowaadna waxa ka soo baxay fadeexado culus ee si fiican u dhagayso waxa dhacay ma sahlane howlgalkan dabargoynta hogaaminta mooryaanta ah iyo goofanaha ku naaxay dhiigga shacabka waxa lagu bilaabay wasaaradaha federaalka wasaaradda ganacsiga fadeexado culus ayaa bannaanka la soo dhigay waxaana xabsiga la dhigay mas-uuliyiin sare oo ka shaqaysanayay shidaalka dalka soo gelaya iyagoo shidaalka ku iibinayay suuqa madow dul dhiganayayna dhaqaale badan waxa ay samaysteen meel dhexe oo ay faa'iido kaga dhaliyaan shidaalka iyaga ayaana dib uga sii iibinayay shacabka oo suuqa madow ku gadayay wasaaradda shaqo abuurka dalka waxa la xidhay ku dhowaad 8 mas-uuliyiin sarsare iyo agaasimayaal kuwaasoo lagu eedeeyey laguna qabtay in ay wax ka dayeen muwaadiniinta u shaqo tegayay dunida kale oo ay isticmaaleen qaab ah in ay diiwaanka magacyadii iyo dukumentiyada dadka shaqadoonka ay u dhiibteen ay boosaskoodii ku bedeleen eheladooda ama ay dibba u sii laba iibiyeen oo ka macaasheen iyagoo u aamusay muwaadiniintii dukumentiyada iska lahaa booskoodiina dad kale ayaa ku dhoofayba dhaqaalihiina way ka qaateen hay-adaha nabadgelyada waxaa laga qabtay mas-uuliyiin awooddooda ku xaday dalkana kaga saaray khayraadka dalka oo ay ku jiraan macdanta dahabkiya wixii la mid ah iyo qaar kale oo gacan ka geystay ama fududeeyey xatooyo khayraadka dalka oo dibadaha loo daabulayay xuduudahana laga saaray jibriga waxaa lagu qabtay fadeexado tuugnimo oo ahaa in alaabo sharci darro ah oo dalka la soo geliyey iyo kuwo dalka si khaldan looga saarayeyba ay ka macaasheen oo ay ka dhex dilaaleen oo ku lug yeesheen wasaaradda dakhliga waxaa laga helay boqolaal rasiido oo bug ah iyo kuwo xisaabo aan jirin lagu xidhay milyuumaadna lagu lunsaday in ka badan 30 mas-uul oo wasaaradaha federaalka ah ayaana wejiyadooda iyo magacyadooda sidoo kale caddaynta xatooyada ay ku kaceen loo soo bandhigay warbaahinta oo qumaati loogu faafiyey baraha bulshada kolkan komishinka la dagaalanka musuqa ee qaranku wuxuu ku tilmaamay kooxdan in ay ku xidhiidhsan yihiin shabakado waaweyn oo ku faafsan kuna xidhiidhaystay dalka deegaanada ilaa tuulooyinka waxaana hoosta laga xariiqay si cad oo toos ahna loo sheegay cod dheer lagu sheegay in howlgalkani bilaabmay lagana dibagelayo god walba oo ay gasho silsiladani xididada loo saarayo xataa qaarkood tuhmanayaasha tuugada ah ee dalka dibadiisa u baxsaday ayaa lagaga daba tegay meel walba oo ay dunida ka joogaan Interpolna dawladdu ka codsatay in ay u soo gacan galiyaan dagaalkan baan ay xukuumadda Abiy Ahmed ku ciribtirayso tuugada suudkii saxiixa ku xaday xoolaha qaranka la hardamaya duruufaha dhaqaale shacabka dalka ayaa si weyn ugu riyaaqay una soo dhaweeyay waxaana deegaan walba degmo walba iyo magaalo walba looga dhigtaagaya xilliga ay bambadani la kacayso ku iyo tu badan oo gofane ku naaxay xoolaha shacabkan in badanna ku taaxtaaxiyay nabad iyo awood isbedel adigan i dhageysanaya faalada inagula wadaag aragtidaada ku aadan ololahan qaran iyo haddii aad garanayso midkood ama koox ka mid ah dhuuga jaqay dheecaanka dadka iyo dalka ee laga buufinayo qaranka